الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad uu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa leeyahay salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinuu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrinna ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cidheedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhaara loo jideeyey istaciinuu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa bihaa yaa bilaal kacoo salaada inoogu ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaalla saddexba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon wannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi salaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaadaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyagu inay salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyadaba ay ka tagaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaada xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abuu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alli markuu salaada tukanay lilmadaa ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahoonu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaageen salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaada dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaaddu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaadeeda ku dhammaystaa buu aye raisli ninkuna dareenka ku dhammaysataa masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa wa ama in kaana min almukadibiina adaalliin masaajidka o dhan baa yidhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waa la bilownu midh anagu alla waa ku darra laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligay gudaha ka wada hadallaa buu والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يلي رسولك دارت وارتانك وصاحبك إلا قدام بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكم ذا يولي رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asaga dhimashada u diyaar man minna la yakraha al-maut dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida nolosha jecelahay ashyaada materialka iyo lacagta iyo amalka saalixa qalbigeenu haday dhabaata ay nagu timaado wuxuu u iilanaya lacagtu u iilanaya wuxuu lacag hadaad hayso mashaakilka way xalismaysaa خالق يا مخلوق انا ما انتم مدوا كلا garan lahayd خالق يا مخلوق ilaahay ma doonaya qalbiga meel kale inuu u jeesto ila xaqiisa mooyaan waa meesha ilaahay adoonka uu ka fiiriyo rasuulku qalbiga علينا ان نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى الله شقد هذه كيمة دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر الله فديك ورا ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا هي الرجك لا هي بريك لا إلى بريدي سي عبسدي سمويا وهم انت كليه جرك الله شاقين كليته القلب قعمه هو اللبو لقوه هو اللبو انده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك هو مد كليه بحا قلبك مد لوغا دغاي وهم انت كليه جرك بني هذا كما مشو رسولكم إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب ومن باكو جرك بني آدمك حتى هجاك جرك ودن با هجاجي حتى باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول حتى قلبك هجاجو قلبك معوكو هجاجيا وإلهي معرفة ديسا حتى قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عصيانك سكودعي مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيا دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيا قعمهيني وحي الربان بي قبنيا لغهيني ماشي الربان بي آذيا دقالهيني ماشي الربنا كبحينينا هذا الكيني ماشي وحن دونكو هاللينا فحن حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنة من قسل أفرت السنة من كفتمن وحن سوغاري الرق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لجوغا عن اسكم ملينيي إن أنا نقتوغا عن اسكم ملينيي وإمامك وخير التابعين ويا وعالمك تابعين توقع علم البناء ويا نوح هذا الكالي صد السنة من قسل مويري أفرت السنة هذا الكفتمة إقام الصوبحين وحن سوغاري أقوام مركان لجوغا نكتوغا جوغانا أنا اسكم ملينيي إن أنا هيتوب وحسن البصري لك صدقه hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa tan dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xooggiyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisa addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo ad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi اlardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahee maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo kaa buuxa waxa bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaasana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay